waa habeenimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 30 bisha Juulaay sanada 2020 ku soo dhawaada warka habeenimo ee shabakada Sirta Media. qaar ka mid ah shaqaalihii xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka shaqada ah waxaana isu soo taraya wararka sheegaya in shaqo joojin lagu sameeyay. qaar ka mid ah shaqaalaha oo la hadlay bahda warbaahinta ayaa sheegay in xafiiska ay joogaan balse inta ugu badan shaqadii laga wareejiyay loona dhiibay dad cusub halka qaar kalena si rasmi ah loo bedelay. xubnaha xilka laga qaaday waxaa ka mid ah xogayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Nuur Maxamed Cabdi waxaana lagu bedelay Cabdirasaaq Xuseen Aadan oo ka tirsanaa xafiiska madaxweynaha. shaqada waan imaanaa balse shaqooyinkeena waxaa qabanaya kuwa kale anagana waan iska imaanaa kumbiyuutaradii iyo agabyadii kale ee xafiiska waa lala wareegay ma aqaan waxa uu wareejin doona ra'iisul wasaarihii hore ayuu yiri qof ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaarihii kalsoonida lagala noqday. madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ka socda wax u muuqaal ah dagaal ka dhan ah dhammaan dadkii ka agdhawaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana dhibaatada ugu daran wajahaya shaqaalaha iyo ciidanka dawladda ee ku qornaa xafiiskaasi. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la bedelay qaar ka mid ah ilaaladii xafiiska ra'iisul wasaaraha lana keenay kuwa cusub. qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegaya in ay ka fikirayaan inay isaga tagaan xafiiskaasi halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in cadaadiskani uu yahay mid kooban oo maalmo kadib uu dhammaan doono sidaas darteedna ay u dulqaadan doonaan. dhanka kale siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta kormeer howleed ku tegay xarunta bangiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaasi oo amaro culus uu ku soo rogay. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa intuu ku guda jiray kormeerkiisa waxa uu maamulka bangiga dhexe kala hadlay dardargelinta shaqooyinka qaranka ay u hayaan iyo qodobo kale oo lagama maarmaan u ah socodsiinta howlahooda. kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalo la doonayo in lagu xoojiyo waxqabadka hay'adaha dawladda iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka loo hayo bulshada si uusan gaabis ugu imaanin adeegyada kala duwan. sidee ogaatay shabakada Sirta Media Master Guuleed ayaa ku amray maamulka bangiga dhexe in aan lacag laga bixin karin bangiga inta lagu jiro xaaladda kala guurka ah ee dalka. maanta waxaan booqday bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaan kula kulmay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaa la iiga warbixiyay isbedelada muhiimka ah ee taageeraya horumarinta maaliyadeed ee kobaca iyo ganacsiga. waxaan sidoo kale ka wada hadalnay doorka muhiimka ah ee bangiga uu ku leeyahay in uu sii wato wakiilka maaliyadeed ee Soomaaliya ayuu yiri Master Guuleed. tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo 25kii bishan siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay Master Guuleed ayaa waxa uu booqday xarumaha dhaqaalaha dalka sida wasaaradda maaliyadda dekada iyo maanta uu booqday bangiga dhexe ee dalka. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in kusimaha ra'iisul wasaaraha uu xanibay dhammaan lacagihii dalka u yaalay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Xasan Cali Khayre. dhanka kale beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid talaabadii xilka loogu tuuray ra'iisul wasaare Khayre iyaga oo walaac xooggan ka muujiyay hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya. beesha caalamka ayaa si cad uga hortimid qorshaha muddo kororsiga filla Soomaaliya iyadoo oo ka digtay in dalka ay ka qabsoonto nooc doorasho oo aan heshiis lagu wada ahayn waxayna soo jeedisay in heshiis siyaasadeed laga gaaro nooca doorashada ee dalka ka qabsoomaysa taas oo loogu fogaanayo muddo kororsiga la fahamsan yahay inuu xilkiisa ku waayay ra'iisul wasaare Khayre oo isaga markii dambe sheegay inuu danta shacabka isku casilay. haddaba maxaa xigi doona hanjabaadda ka timid beesha caalamka ee xilligaani kala guurka? Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo jaamacadda Oslo ee dalka Norway ka dhiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda dhawaana ka soo shaqeeya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga ugu warmay arrintaasi. Dr. Gaas ayaa sheegay in beesha caalamka ay ka biyo diidan yihiin talaabadii sharci darrada ahayd ee baarlamaanka xilka ugu tuuray Khayre xilli uu dalka marayo marxalad xasaasi ah. waxa uu xusay in jawaabtii filla Soomaaliya ay ka bixisay digniintii beesha caalamka ay ahayd mid aan munaasab ahayn haddii ay ku sii socotana ay gabi ahaanba ku waayi doonto taageerada beesha caalamka. Dr. Gaas ayaa sheegay in beesha caalamka ay dhaqaale badan siiso dawladda federaalka Soomaaliya ay hakin doonto xilligan haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan isla markaana si toos ah looga shaqeynin sidii doorashada waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd. sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda Farmaajo ay ku waayi doonto aqoonsiga caalamiga ah iyadoo oo gabi ahaanba laga joojin doono taageerada kala duwan ee beesha caalamka ay ugu deeqdo Soomaaliya. wuxuuna hoosta ka xariiqay in beesha caalamka ay maxkamad caalami ah la tiigsan doonaan hogaamiyaasha dawladda federaalka Soomaaliya haddii doorashada xilligeeda ay ku qabsoomi weydo maadaama ay qaswadayaal ugu tilmaameen qoraalkoodii ay ka soo saareen xiisada taagan. arrimahaasi ayaa ka dhalan kara digniinaha beesha caalamka oo ay dawladda Farmaajo ka madax adeegayso ayaa bulshada Soomaaliyeed u horseedi kara burbur hor leh oo dhinac kasta ah iyo dib u dhac aan laga soo kabsan karin. sida uu sheegay Dr. Maxamed Gaas beesha caalamka ee taageerta dawladda Soomaaliya ayaa iyadoo diidan qorshe kasta oo lagu rabo muddo kororsi taas oo ka hor imaanaysa rabitaanka filla Soomaaliya oo muddooyinkan dambe la rumaysan yahay inay ku howlaneed xeelado ay Farmaajo ugu sameynayso muddo kororsi aan sharci ahayn. dhanka kale madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlaya xaaladda Puntland ayaa si adag uga hadlay arrimaha ammaanka ee deegaanada maamulkaasi. Saciid ayaa amray ciidamada ammaanka inay toogtaan cid kasta oo hubaysan oo khatar ku ah ammaanka guud ee Puntland iyadoo aan la horgeynin wax maxkamada. waxaan balan qaadaynaa ciddii diida baaqina
in aan wax arxan ah loo galaynin mana qarsanayna waxa aan ciidamada ammaanka faraya in ciddii cadow ku ah bulshadan aad ku toogataan goobtii aad ku aragtaan ayuu yiri madaxweyne Deni sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in Puntland ay leedahay cadow la wajiye kala duwan isla markaana ay la dagaalami doonaan cadowga hadda jira waxa uu yeesho wajiye kala duwan waxaan rajaynayaa in lagu dhiirado wax ka qabashadooda cid walba oo faldambiyeed gasho oo huweysan amaba goob weerarto waa in lagu fuliyaa go'aankaasi ayuu sii raaciyay madaxweyne Deni ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loogu wada shaqeeyo amniga iyo horumarka Puntland hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay ciidamada ammaanka ay garowga ku rasaaseeyeen dad dhigaya dibadbax cabasho ah taas oo dhalisay khasaaro u badan dhaawac intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan ina soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirta Media adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media adigo weelka ruma Sirta Media Sirta Media